حسد محل يرهده محاسة كينا وأسبابته كينتا محي تهر داوس مليه انتو ويجرته حسد وحل يرهده حسد كحن وحوي إن أضغف ولا الكاية برواقك وأركتد waxay doonay barwaaqada saan noqoto barwaaqad diineed bay noqon kartaa mid maadi bay noqon kartaa quruux jirkiisa ay noqon kartaa maal iyo caruur iyo xilay noqon kartaa wax un qof uu haysto walaalkaaya oo uu ku dhaamay inaad inta aragtid wixii aad u bogto jeclaatid kow inaad jeclaatid kaliya ma ahana xaqana aad jeclaatid in adiga kugu soo wareegto xaasid ninka leeyahay waa ninkaas kow xasadka noocaasi wuu qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa inuu qofkii xaasidka ha jeclaado qofka nibcadaan haysta nibcadu inay ka zuusho walow meel kale baysan aadin haday doonto asagaba yaan la siin waa xasadka kan ugu xun hebel caafimaadku inuu ka zuulo hebel waxa weeyaan inuu caruurtu ka dhamaato xiluhu inay ka dhintaan reerku inuu ka burburo dhaqaaluhu inuu ka burburo inaad jeclaatid waa cudur waa xasad waxa kale oo xasadka kamida inaad jeclaatid in qofkii xantidii iyo wixii khayrka aad ku aragtay ay dhaafaan adigana kugu soo wareegaan waa qayb labaad waxaa saddexaad inaadan jeclaan wixiisu inay dhaafaan ma jeclid in adiga lagugu soo wareejiyana ma jeclid laakiin waxaad jeceshahay inuusan adiga ku dhaafinuun 10 kun haddaad haysato dollar asna inuusan 10 ka dhaafi 11 maalinkuu gaaro kun caloosha ku xanuunaysa hoogaya ninka waa ay dhaafaad leedahay waa nooc xasadka ka mid ah iyaduna laakiin labadii hore wuu dhaamaa marka musaawaad baad meesha ka rabtaa inuusan hebel marra ku dhaafin caruurtaadu hal haday yihiin inuu halka asna haystaad rabta halka inuu taagnaado un baa jeclaanaysa kan afraad waxa weeye waa ruux wuxuu ku arkayaa wanaagii buu jeclaanayaa waxba adiga inay waxaagu ka nusqaamaan ma raba inay ku barakoobaan oo ku bulaalaan buu rabaa laakiin asna wuxuu rabaa intaas oo kale inuu helo ilaahu anna waxisi sida hebel uu khayrka ula baxaayo u sadaqaysanaya anaan u sadaqaysay qibdi baa taa loo yaqaan waa fiicanta iyadu ilaahu hebel inta dhaqala siisay hadaad siisid anuguna sidiisoo kale khayrka uga faa'iido waa arrin fiican way arrinkaas iyo wanaagsan tayib asbaab keentaa jirta marka xasadka noocaas asbaab keentaa jirta koow waxa kamid ah alcadaawa isnacayb labadan qof u dhaxaysa qofka markaad isnacdaan col noqotaan waxaad isku dayin inaad qofka asaga muquunisidood awood u sheegatid haddaad ka daciiftid oo awoodi weydid oo qofkii asaga dhib aad u geysan weydid wax kasta oo qofka dhib ku gaaraan ayaad ku farxaysaa inuu waqtigu ka adkaado balaaya ku dhacdo xanuun waxa weeyaan weligii uu la socdo caruurtu ka baaba'aan musiibo ku habsato laana nimcadu haysa ka qaadi weyday muquunin weyday wixiina hore u sii socdaa waxaad jeclaysanaysaa inay dhaafto marka waa nooca koobaad oo keeno cadawtinimada loo yaqaano cadawtinimada nooca loo yaqaano way waa midda gaaladu ay nabi maxamed ku hayeen calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed ay ku hayeen iyo muslimiintaba in tamsaskum hasanatun tasuuhum dhibaato yar oo horumar haddaad gaartaan waa murugoonayaan وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها واحد باتها دي سو غارتنا مشحرب يا ألالاس يا برامبرقين يا وحي كبح مايا وحسد محاو كاني وإذا لقوكم قالوا آمنا مركا إذن كإذن لا جوغان وإذن أفمعانين يا مؤمنين بانا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم مركا يقوني اسولا بحانا فرتي دحدا كقنينيا وي او تول بيلاي محمد ما انت هرمر غاري اورانيا waa nooc kamida marka xasadka cadaawadaasana keenta kan labaad waa wax loo yaqaan at-ta'azzuz waa maxay santaagi isla sareyn ma doonaysid marna in laga sareeyo meesha kaliya waad waxaad rabtaa inaad malaaq ka ahaati kaliya waad rabtaa toora inaad ka ahaati ta'azzuz marka inuu qofku asagu isu arko inuu meesha kaligiis ka jiro waan laga sareynin waa nooc labaad oo keena nooca saddexaad waxa weeye istikhdaam baa loo yaqaanaado مثلا قيباس الغزالي باشا رحمه الله عليه نينكا وحو اهان جيرا نين لو شقeeyo dukaamo leeyahay hooselo waaweyn buu leeyahay baaqaaru leeyahay xawaaladu leeyahay asaga loo shaqeeya wuxuu doonayaa dadka asaga u shaqeeya nolosha waligood inaysan ka bixin shaqaalo inuu ka akaada haday xawaalad kala ka agfurtaan ama dukaan kala ka agfurtaan ama baaqaar ka agfurtaan ama baabuur uu wax weeyaan meel kala ka keensado maalinkaas isbitaal inuu gala laga yaabo dhiigu ku karo xanuun iyo sakaraad weligii wuxuu u bartay in asaga loo khidmeeyo dalad lagu dawado boos lagu yiraahdo la maamuuso oo dadka uu ka sareeyo ninkii noocaas ah shaqaalahaagii baa wax noqday lama tusi karo waxaan malahay Nairobi taas way arag balooye waa nooc marka xasadnimada kamid ah
inaad jeclaato weliga dadku inay kugu hoos noolaadaan oo adiga kabaha kugu baalashaan oo shaqaale kuu noqdaan oo aysan marro hormar gaarin xaasid baa toogo xanuunka haddaa isku aragtidna iska daawe kan afraadi waxa weeye tacajub oo tacajub waa maxay isla weynan adiga inuu ku galo adigu ismahadiso adaaba waxa tahay ninka ragga ugu sareeyo inay libaxsan ka taabta qoliyaha gaalada xanuunkaas way qabaano nabi anbiyada ilaahay markay u yimaadaan waxay oran jireen ma antum illa basharu mithluna oo maxaa tiin idinku aadama anagoo kala hatiina maxaa haya nimankan nabi ilaahay baa u imaanayo rasuul ilaahay baa waxba u sharxan ka soo leeyahay anoo kala tacajuba marka hayay isla xooga ismahadin waxyaalahay oran jireen waxa kamid ah nabi Muuse iyo nabi Haaruun baa u yimid qoliya faraacina an nu'minu li basharayni mithlina ma laba aadamo anagoo kala ahan hadda rumayna ma yama dhici karto nabi Muhammad bay ilaahay ab'atha Allahu rasuula ma ilaahay baa bashar soo diray bashar soo diray ma dhici karto tacajub baa marka loo yaqaanayo waa nooc xanuun kamid ah asaguna xasad kan shanaad waxa weeye oo xasad ka keena ujeedooyin iyo dana aad lahayd wax inaad ka baqdid inay ku dhaafaan armu shaygaan xoogaa ku dhaafaa cabsi aad ka baqaysid baa laga yaabaa xasadnimo inay kugu keento tan maxaa laga wadaa waxa laga wadaa inta badan dadka danta isku shaqada ah oo shaqooyinka isku nooca ka shaqeeya dadkaas xasadka noocaas ku badan yahay tusaale xaasaska la wada qaba kamid ah oo xaasaska ninkan uu qabo 2 3 4 kay dooni ha noqdo oo badan mid walba waxay isleedahay midaan kaleeto armay kaaga faa'iido badnaataa ninka oo ninka kaaga faa'iido badnaataa oo halka ninku uu ku jeclaan waaya oo aad dhulka ku jiidantahay in kaar kugu dhacda marka xoogaa su'aalaadka noocaas oo isweydiinayso maadaama isku shaqo yihiin oo hal nin wada qabo baa laga yaabaa inay ku xambaarto xasadnimo inay tiraahdo tan waxba kuma ogolo waxba hormar gaari mayso ayada cuqdada ay qaado qaarkood laga yaabo inay isdilaan qaarkood inay isgubaan qaarkood inay sixir isu adeegsadaan balaayo isu adeegsadaan shaqa ka wada dhaxaysa waxa kamid ah dadka dukaanleyda ah hal shaqa ka wada dhaxaysa marka waxa laga yaabaa inuu isleeyahay customka kasbo hal ugu yimaado adiga kaliya hal laga adeegto hadduu isiraahdo hebel baa marka wax adeeg badan u imaanaya waxa laga yaabaa nooc inuu galo asagana cudurkaas waxa kamid ah macallimiinta dugsiga waxa dugsiyaashii baa isu dhow marka waxa laga yaabaa inuu isiraahdo adeerow ninkan dugsiga uga agfarto hadda ka horan kuwa gartooda gala macallimiin ayagoo dhowr dugsi meel kula mid wuxuu ka agfaro dugsi free lacagna waa ka qadan jireen ayagu hal mar lagu kac marka dagaal baa ka dhacay gartooda aan gal war maxaad ka rabtaa ninkan markaas waxay leeyihiin mararka qaarkood hadda ka horan go'aan xaafadda ka gaaray dugsi noocaas inaan laga furin ma dawlad baa nimanku awood badana mararka qaarkood waxay ku leeyihiin adeer dacwo ku dumi weeye annaga diintii ka shaqaynayna hadduu wixii free ka dhigo de wax way dacwadu way burburaysaa war dacwo ka burburmaysa khayr soo iskaashada maya ma jirto waa isku shaqo marka waxa kamid ah dadka wax akhrinayo daraasaadka akhrinayo culimadii baa soo galaysa qaar kamid ah wucaadi baa soo galaysa waliba waxa la akhrinayo hadii manfac iyo xoolo lagu qaadanayo kaba si daranba oo asagoo xogaa meeshii wax ka jeejeedinayo oo lacag iyo manfac ku qaadanaya hadduu mid kala yimaado ibraahim dhakan xogaa shilmaadkaaga armu ka wasakheeya asagana cudur baa galaya xaasidnimo ama sheekh ha noqdo ama waacid ha noqdo ama khadib ha noqdo waa cudur caadi oo dadka ku dhaca culimo iyo caamaba ku dhaca dukaan leeyna gooni kuma ah macallin dugsina gooni kuma aha islaam la wada qabana gooni kuma aha culimadana wuu gala iyagana wuu gala tayib waxa kamid ah oo soo galaya xasadka noocaas ah oo qaybiisa kamid oo lixaad madaxnimo jacayl inuu qofku xil iyo madaxnimo raadinteed madaxnimada ma aha xil dawladeed oo la qabto kaliya meel kasta hal kitaab hadduu akhriyo wuxuu jecel yahay kitaabka asagu inuu madax sheekh ku noqdo oo aan cid kale arrinka soo galin magaalada uu joogo kitaabka ka akhriyo xusn muslim Allah ka dhigay hadii la yiraahdo mid ama kula mid ama xogaa ku dhaamaa meesha soo galay waa sakaraadahay sababtu ah wuxuu rabaa meesha asagu inuu ugu sareeyo xil buu hayaa waa madax waxa laga yaabaa doorasho la galay wuxuu og yahay rag ka fiican oo meesha soo gali lahaa wuxuu isleeyahay kuwaanu waxay kugu keenayaan haday guuleysaan ceeb hadhow dhaliilahaaga inay soo baxaan si kasta hadii la yaro huud yahan caam la akhriyo lagama dhaqaajinayo xilka mar ku dhag buu noqon wax kasta adigu akhri ma laga fujinayo iimaan buu noqon karaa shaqooyin kale tay noqon karaan inuu qofku marka jeclaado inuu asagu noqdo dadka ugu sareeya waa nooc kamid ah marka xasadku xanuun weeyaan waxa kamid ah bakhaylnimada kamid ah xasadka inaad adoomada ilaahay khayrka uga bakhayshid khayrkiiba dadka uga bakhaylaysaaba waa nooc aad u liita weeyaan noocaas nooc aad u liita weeyaan inaad dadka khayrka uga bakhayshidi waa wax aad u liita qaybahaas oo dhan marka waxay soo galayaan xasadka qaybihiisa